Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti waxaana wanaagsan kusoo dhawaada sumidbro.com ee laga barto cilmiga kombiyuutarka. Darsigeena maanta waxaan ku qaadan doonaa qaabka loo abuuro documenti cusub. Qaabka loo abuuro ayaan ku qaadan doonaa. Photoshop markaad soo gashid gudaheeda laba qaab ood usoo kicin karaysaa: in shortcut aad kusoo kicisid iyo inaad tagtid file kadibna aad dooratid new, ama inaad isticmaashid shortcutka ah Ctrl N inaad isticmaashid. Haddaad doonaysid sidoo kaleeto dialog boxkan hadda versionada hadda ugu dambeeyay lagu keeno. Haddaad u baahan tahay kii yaraay cashirkaas horey baan ugu soo hadlay, daawo halkaas ayaad kasoo dooran karaysaa. So marka qaybta ugu horeysa recent ba usoo bixi doona. Recent qaybta marka recentiga waxaa loogu talagalay dhawaan documentiyasha la isticmaalay ama cabirada la isticmaalay meeshaan kasoo muuqanayo. Soo kale qaybtan save it ay ku qoran tahana waxaa soo geli doona cabirada la save gareeyay, noocyada kala duwan loo isticmaalo. Qaybta marka waa footooyinka baa loogu talagalay sida qaybta marka waxaa loogu talagalay sawirada baa loogu talagalay noocyada kala duwan, ma jiif iyo dheer taag iyo jiif baad ka helaysaa. Qaybtan waxaa loogu talagalay printerka A4 iyo A3 waxyaabahaas baa ku jira. Soo kale qaybtan kalena waxaa loogu talagalay waxyaabaha archiga la xiriira baa loogu talagalay. Qaybtan kaleetana waxaa loogu talagalay dadka web designerska. Qaybtan marka waxaa lagu jira taleefanada cabiradooda kala duwan baa ku jira. Haddii aad design gareynaysid sidoo kaleeto program ama app ku shaqeynaya taleefanada noocyadooda kala duwan cabiradooda marka inta ay kasoo muuqanayaan. Qaybta ugu dambeyso waxaa loogu talagalay film and video, waxaa loogu talagalay dadka ku edit gareynayo Adobe Photoshop videoyaasha. Marka noocyadooda kala duwan baa isticmaali karaan. HD waa isticmaali karaan oo 1080 sidoo kale waxay isticmaali karaan 4K 8K waa isticmaali karaan noocyadooda kala duwan. Inta buu isticmaali karaa cabirada kala duwan marka inta ay kugu siin doonaa. So marka anaga waxaan imaanaynaa qaybta photoga ayaan imaanaynaa. Defaultiga ayaan ku dhufanaynaa kadibna cabirka ayaan ka bedelaynaa. Marka defaultiga cabir noocan ayuu ku yimaadaa. Marka widthka ama ballaca waxaan leeyahay 12 ka dhig, heightka dhirirkana waxaan leeyahay 7 ka dhig ayaan leenahay. Marka inta waxaa ka bedeli karaysaa ma inches baa u rabtaa, pixelska centimeter baa u rabtaa, millimeter. Cabirada marka noocyadan kala duwan baa la isticmaali karaa. Pixels iyo inches iyo centimeter cabirada kala duwan waa isticmaali karaysid waa. So marka 12 inch baan leeyahay aniga. Waxaan leeyahay 12 inch hoosna widthkeeda 7 ka dhig ayaan leenahay. Inches ayaan isticmaalaa. Pixels iyo centimeter iyo millimeter iyo cabirada kala duwan ayaa u isticmaali karaysid waa Adobe Photoshop. Qaybta markaan ugu horeyso preset detailka waxaan ku qoranaynaa sumidbro.com ku qoranaynaa. Okay, inta ayaad ka save gareyn kartaa. Marka haddaad u baahan tahay presetkan ama cabirkan inaad save gareysatid, calaamadan yarta ayaa kale ku siinaysaa, kadibna magaca ayaad ula baxaysaa, kadibna save ayaa leedahay. So marka cabirka wuxuu geli doonaa qaybta save-ka ayuu u geli doonaa. Saad hadda u jeedidba qaybta wuxuu geli doonaa save-ka ayuu geli doonaa. Magaca aad ku qoratay ayaa kasoo muuqan doona iyo cabirkiisaba. Okay, marka orientationka marka waxaa leenahay anaga nooga dhig ma istaag baad u rabtaa mise jiif, ma waxa waaye landscape iyo portrait bay kala yihiin. Marka noocaad rabtid ayaa ka dhiganaysaa. Ma artboard baa u rabtaa. Artboardka marka waa isla arki doonaa qaabka u shaqeeyo, asiga ma doonayno. Haddii documentigaada u rabtid artboard inuu noqdona calaamada digta saaro. Marka aniga uma baahani artboardka. Resolutionka marka waxaan ka dhiganaynaa hadda 300 ayaa noo saaran. 300 ayaan ku dhaafanaynaa. Marka haddii raamkaada uu yar yahay, resolutionka iska yaree. Waxaa laga yaabaa inuu culays kugu keeno ayaa laga yaabaa. Iska yaree marka resolutionka. Qaybta marka color mode-ka tan uu mahdo halahan marka color ayaad haysataa. Marka badanaa waxaa la isticmaalaa RGB iyo CMYK ayaa la isticmaalaa. Badanaa labada color la isticmaalo. Marka RGB-ga marka waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha digitalka ee shaashadaha kasoo muuqanayo
haddaad u doonaysid sidoo kale desktop iyo waxyaabahaas ama wixii shaashadba kasoo muuqanayo RGB ayaad u isticmaali karaysaa. haddii maxaa la yirahdaa u baahanta documentieska hadda daabacaad ama in la daabaco haddaad u baahan tahayna CMYK isticmaal. RGB waxaa loo soo gaabiyaa red, green and blue baa loo soo gaabiyaa. halka CMYK loo soo gaabiyana cyan, magenta, yellow and black loo soo gaabiyo. marka badanaa kalarkan haddii daabacaad ama boor uu yahay oo kaleeto boor haddii aad habeenaysid sidoo kale cabirkiisa aad habeenaysid badanaa CMYK ka dhigo. shay walbo la daabacayo kalarkiisa inta ka dhigo. inta marka 8-bit ayaan ku daysanaynaa. qaybtan marka backgroundka inta ayaad ka bedeli karaysaa kalarka aad u baahan tahay. haddaad cadaan u baahan tahay madow ama kalarro kale aad u baahan tahay inta ayaad ka dooran karaysaa. soo kaleeto kalar custom haddaad u baahan tahay oo kalar nuucyo kale haddaad u baahan tahay qaybta cadaantan kalarka kali ku si kadibna kalarka jeceshahay ka dhigo. guduudada ka dhiganaysid buluug kalar alla kalarka jeceshahay ayaad ka dhigan karaysaa. marka waxaan ku daysanaynaa anaga white ayaan ku daysanaynaa. create ayaan leenahay marka noo sameey. documentigeena magaciisa waxaa la yiraahdaa Smith Pro document ayaa la yiraahdaa waana RGB zoomka hadda waxaad jeedaa marka zoomka inta ay ku soo bandhigaa 25% ayaa soo dhaweysanaya ku leeyahay. marka haddaan soo dhaweyska marka waxaan u isticmaali karayaa control plus ayaa isticmaali karayaa ama waxaan isticmaali karayaa kan ayaa isticmaali karayaa. okay zoomkan ayaa isticmaali karayaa. haddaan doonayo in maxaa la yiraahdaa aan isku soo fogeeyna inta ayaa isticmaali karayaa. handiga ayaa isticmaali karayaa. meesha raba ayaan ka tegi karayaa. geeska waan tegi karayaa. ama waxaad isticmaali karaysaa shortcut ayaad isticmaali karaysaa oo control plus markaad soo dhaweynaysid control plus ayaad isticmaali karaysaa. marka aad iska fogeynaysid control minus ayaad isticmaalaysaa. marka aad rabtid maxaa la yiraahdaa inuu kuulo fit inuu ku noqdo ama inuu la ekaado shaashadana waxaad isticmaali karaysaa control 0 ayaad isticmaalaysaa. wuxuu la ekaanayaa shaashada ayuu la ekaanayaa. shape ayaan kusoo darsanaynaa sidoo kalena qoraal ayaan kusoo darsan doonaa. okay shape iyo qoraal baan kusoo darsanay. documentiyada marka qaab noocan ayaad u samayn karaysaa. waxaan rajeynayaa inaad fahamteen. waxaynu balanaad la siga xiga. waxaan kaga tegayaa saas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.